ciidanka Israa'iil oo sheegay xalay inay cabsi weyn soo food saartay kadib markii dhulka hoostiisa ay wax ka dareemeen saakay oo Arbacaa waxay ku waasheen duqeymo kala duwan magaalada Gaza gaar ahaan deegaanka Rafah halkii ay ku jireen sida la sheegay ciidankii go'doonsanaa ee Xamaas haddaba sheekada ciidanka go'doonsan ayaa dib u soo cusboonaatay xalay wixii dhacay iyo tafaasiisheedana barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonaa waxaa kale barnaamijkan idinku haya wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil oo ka laabtay hadalkii shalay uu sheegay waataan idin sheegay lahaa dhikan hadalkan haday ku raacsan yihiin way sheegi doonaan hadii kalena dib ayuu u beenin doonaa hadalkii uu dhahay waa sii joogaynaa Gaza oo waxaan ka dhisanaynaa guriyo wasiirkii gaashaandhigga wuu ka laabtay kadib markii la sheegay mas'uuliyiin Mareykan inay toos u soo hadleen wasiirka haddaba tafaasiil ku saabsan sheekada iyana barnaamijka ayaan ku faaqidi doonaa qaybaha dambe barnaamijkana waxaan idinku hayaa waa kuma muxuuse ahaa siduusa u dhacay shilka uu ku dhintay abaanduulaha ciidamada dowladda Liibiya ee Turkiga taageerada weyn uu siiyo iyadoo diyaaradii waday abaanduulaha iyo rag kale oo mas'uuliyiin oo la socday oo Liibiyana ay ku burburtay duleedka magaalada Ankara ee caasimada wadanka Turkiga oo baaritaan rasmi ah ku bilaabay arrinka haddaba sheekadaas iyana barnaamijka ayaanu qaybta dambe kaga faahfaahin doonaa qodobadaas ayaynu barnaamijkeena subaxnimo asxaabay idinku soo gudbin doonaa inta ku jirno wixii warar soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa kulanti wanaagsan asxaabay meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyadeena waa barnaamijkii ugu horeeyay maanta Arbacaan idin soo gudbinayo haddaba barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa sheeko aad u xiiso badan oo saakay ka imanaysa Gaza haddaba saakay maxaa dhacay waxa lagu baraarugay duqeymo meel kasta waliba waxay duqeynayaan Israa'iiliyiinta deegaanka la yiraahdo al-khatt al-asfar leenka jaalaha waa ciidankooda meesha joogaan meelo ku dhow ayay duqeynayaan waliba deegaanka Rafah waa halkii Xamaas ciidankeeda godadka ku jira lalaha ciidankan godadka ku jira sidoo u nool yahay taas ayaa kuwii kor saarnaa roob qabow dhibaato sheeganayaan kuwaan xagee cunto ka helaan xagee biyo ka cabaan intee ka yimaadaan sheekadan ayaa Israa'iiliyiintu ku wareereen miidihii Israa'iil saaka iyo kuwii kala carabtaba way ka hadlayaan nimankii xalay waxa la yiri iyagoo jooga ayay hoos wax ka dareemeen jug iyo alaab halkaas miir ugu dambeeyay nimanku hal lugay ku taagan yihiin cabsi hal lugay ku taagan yihiin sidoodaba markay wax yar dareema ama godadkii agtiina laga soo baxay xagee wax ka jiraan le saakay marka sheekadaas dhacday leeyihiin warbaahintii markii xalay waxaas ay dareemeen cabsidii saakay waxay kula kalaheen duqeymo Rafah nimankii godadku waa ku jiraan awal inay dhinteen aan moodayn waa nool yihiin lagu hayaa haddaba marka wararkii ugu dambeeyay saakay sheekada laga qoray waxaanu ka soo qaadanaynaa telefishinka al-Arabiya wuxuu leeyahay Israa'iil waxay duqeysay bariga iyo koonfurta Gaza iyadoo raadinaysa dagaalyahanada Xamaas haddaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay dagaalyahanada Xamaas ayaa wali waxay ku jiraan godadka Rafah dhulka hoostiisa haddaba goobjoogayaal ayaa telefishinka al-Arabiya waxay u sheegeen in diyaaradaha Israa'iil ay bartilmaameedsadeen 5 goobood oo markaa kala duwan oo ku yaala deegaanka Rafah iyadoo la sheegay in goobahaasu ay markaa Israa'iil aaminsan tahay inay ahaayeen goobihii xalay dhaqdhaqaaqyada ay ka dareentay halkaas oo la sheegay dagaalyahanada Xamaas inay ku hoos jiraan wali dhulka hoostiisa deegaanka Rafah nimanku marka cabsidaas haysa nafta ka bixi rabto nimanka cabsi dartood nimankii shalay barnaamijkayga ku soo qaatay xooti oo jooga Yemen ay lahaayeen waxaan ka baqaynaa inuu dhulka noogu yimaado halkan xaguu soo mara ay leeyihiin yahuudi dhexdooda wareertay waxay leeyihiin cabsidii xootiga aan ka qabno xaguu soo mara xootiga Iiraana marka maalgelinaysa halkaasuu soo mari doonaa Suuriya soo mari doonaa Urdun meelahaanu naga soo gali doonaa niman marka xooti Yemen jooga ka baqaya
hadday hoostooda dhaqdhaqaaq ka dareemaan maxaa u malaynaysa isku kaadshayaan halkaasaa marka dhibaatadii ugu xumeed ayaa ka taaganaa le saaka duqaynbay ku waasheen weliba askartooda agtooda duqaynayaan halkan waa 5 goobood oo xalay aan wax ka dareennay dhulka hoostiisa ayaan duqaynaynaa waa ku duminaynaa guri meeqa jeer yiraahdeen waa duminay waa dilnay waa qabanay qaarkood haddana waxay leeyihiin godkan waxba kama dhamaadaan nimankii haddana hadday soo burqanayaan meelay ka yimaadeen lama yaqaano marka sheekadaasu halkaasa kaga gudbaynaa qodobka kale ee muhiimkaa barnaamijka waxaynu kaga hadlaynaa shalay waxaa hadlay saan idiinsoo gudbiyey wasiirka gaashaandhigga Israa'iil wuxuu yidhi weligeen kama baxayno abadan inaynu Gaza ka baxno meelaha aan joogno waa joogaynaa xataa waxaan ka dhisan doonaa bu'ra istidaaniya wax leeyahay guryo yahuudda xoog lagu dejin doonaan ka qaadanaynaa inaan ka baxno iska dhaaf heshiis iyo warkiisa kuma jiro waa taa xalay marka shalay barnaamijkaygii aan aad idinkugu sharaxay aadan idiri ninkan hadalka uu ku hadlayo waa laga daba iman doonaa u fiirsada ama hadalkan waa qasdi toos ah ama waa kasbayd maxaa soo bixi doonaa leeyahay sheekadii markii ay dhacday ayaa maraykankii mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maraykanka waxay la hadleen dowladda Israa'iil gaar ahaan wasiirka gaashaandhig waxaa la yidhi sidee wax wadaadi sheekadaadu waa ka daray markaan heshiiskii aan wadnay iyo 20kii qodob oo Trump aan gadaynay ayaa meesha ka saaraysaa maxay tahay sidee wax wadaa ninkii marka hadda ka laabaa la yidhi weliba dowlad kale inay ka hadasho arrinkaa ma rabno adiga war soo saar aad warkaagii ku beeninaysaa la yidhi fiirsada sheekadan waa naga qastaa la yidhi meeshaan maxay tahay carabtii oo dhan waxay leeyihiin iyo turkiga soo annaga idinma sheegin nimankaan nabadu ma rabaan marka sheekadii marka waa qastaan leh qorshihii la waday iyo waanwaantii iyo wixii oo dhan iyo wejiga labaad iyo sheekadii inaan soo afjartay maxay tahay la yidhi waxaan haddaba marka hore aan idin tuso waxaan dhacay telefishinka Sky News wuxuu leeyahay ninka la yiraahdo Katz oo ah wasiirka gaashaandhigga wuxuu ka laabtay hadalkii uu jeediyey ee ahaa in ay xoog waqooyiga Gaza ku degi doonaan yahuudda haddaba marka warbixintu way sii socotay waxaa leeyahay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Katz ayaa talaadadii shalay wuxuu jeediyey hadal kaasoo uu ku sheegay Israa'iil inaanay marnaba ka bixi doonin marinka Gaza sidoo kalena halka ay ka dhisan doonaan guryo yahuudda la dejiyo dhinaca waqooyi ee Gaza haddaba talaadadii ayuu hadalkaa jeediyey waxaana hadda soo baxaya warar sheegaya in hadalkaas uu ka laabtay Katz waxaana la sheegay hadalkaas waxaa lagu tilmaamay inuu yahay sida uu yiri joogitaanka guutada la yiraahdo naxaal ee Gaza joogta joogitaankeeda inuu yahay sababo dhinaca amniga ah bas kadibna hawshaas ay sidaa ku dhammaan doonto dhanka kalena wuxuu sheegay inaanay jirin wax guryo ah oo yahuudda la dejin doono oo laga dhisi doono Gaza ma jiri doonto ayuu yiri labadii arrinba markuu uu ka laabtay ciidanka hadda noo jooga weligood kama baxayaan Soomaaliyeed hadda wuxuu yiri sababa amniga u joognaa amniga hadduu okay noqdo waa ka soo baxaynaa waa macnaha midda kale laakiin waxaan oo dhan waa iska ruwaayada le Israa'iil meeshan inay ka baxdo ma rabto maraykan ha qayliyo ama ha iska aamuso asagay u taallaa haddaba marka aan idin tuso warka asaguna dhanka maraykanka ka yimid telefishinka Sky ayaa isla warkan wuxuu ka qoray sheeko uu leeyahay mas'uul sare oo maraykan ah ayaa ka jawaabay hadaladii ka soo yeeray Katz oo ah wasiirka gaashaandhigga Israa'iil kaasoo ku saabsan in guryo ay ka samaysanayaan yahuudda dhinaca waqooyi ee Gaza mas'uul ka tirsan maamulka maraykanka ayaa waxa uu ka hadlay hadalkii uu jeediyey wasiirka gaashaandhigga kaasoo uu ku sheegay in Israa'iil aanay marnaba ka bixi doonin marinka Gaza isla markaana guryo laga dhisi doono halkaas sida uu yiri haddaba mas'uulka maraykanka waxa uu sheegay isagoo la hadlayay telefishinka Sky News in uu u jawaabay ninkaas una ay dowladda maraykanku la hadashay waxaana lagu yiri qorshaha nabadda ee ka kooban 20 qodob ee uu soo bandhigay madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa la yiri sheekadanu ay ka hor imanaysaa haddaba qorshahan ogow
in uu yahay qorshe ay wada waafaqeen dhinacyada oo dhan golaha ammaankuna uu meel mariyey. marka maraykanku waxay leeyihiin qorshahan ma ka hor imaan kartid, waa qorshe maraykanku wato, labadii dhinac ee dagaalamaysa ay ogolaadeen, golihii ammaanka la geeyey soo ogolaaday. sidee hadda marka sheekadan usoo nooleynaysaa? maxay tahay sheekadan? marka halkaasaa marka sheekadu ka kulushahay. marka nimankan wax falanqaynaya laakiin waxay leeyihiin ninkan wasiirka gaashaandhigga ah hadalka iskama dhihin, waa hadal israa'iil ay aaminsantaha laleeyahy. maraykan ha qasba ama ha iska daayo, laakiin fikrad ay iyagu aaminsan yihiin waaye. marka nimankaasu hawshaas ayay halkaa ka wadaan. haddaba qadar xayeysiisa kadib waxaan u gudbi doonaa sheeko cajiiba oo ku saabsan abaanduulihii dowladda liibiya ciidankeeda militariga oo la sheegay inuu shil diyaaradeed ku dhintay isaga iyo saraakiil kale iyo dad kale oo la socday mar ay safar ku tageen magaalada ankara oo ay dib ugu laabanayeen waddanka liibiya. haddaba ninkan nin noocee ayuu ahaa? maxayse ahayd shilku siduu u dhacay? warbixinadii ugu dambeeyay ee laga qoray arrinka ayaynu barnaamijka qaybta dambe ku faahfaahinayna. meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena ugu horeeya maanta oo ah maalinimo arbaca, waana barnaamijkii subaxnimo. qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka aynu maraynaa. qaybtan marka waxaynu kaga hadlaynaa arrin muhiima oo soo korortay sargaalkii ugu sarreeyay ciidanka militariga dowladda liibiya oo shil diyaaradeed ku dhintay. haddaba dowladda liibiya waxaa taageero buuxda siiya turkiga. weeraradii lagu soo qaaday 2019 ee la rabay in lagu qabsado magaalada Tripoli caasimadda iyo dhulkan oo dhan oo ay imaaraad iyo faransiis iyo wuxuu dhan ka soo shaqaynayeen iyo ruush qola ka socotay oo Wagner la yiraahdo iyo waxa dhan ruushka turkigan dhagaha ka garaacay. dowladdu marka ra'iisul wasaare Dubayba ninka la yiraahdo uu joogo ayaa maartay turkigu taageero buuxda siiya. hadda dhow marka joogitaan ciidamo waxaa jira turki ah oo liibiya jooga waa la dheereeyay waqtigooda. dowladda turkiga waxay tiri waqti kala ku sii darnay ciidankaas. haddaba marka dowladdaas iyo turkiga way isku xiran yihiin, saraakiishooda halkan ay tagaan way soo shiraan. marka waxaa casuumay abaanduulaha iyo ragga la socday liibiyaanka abaanduulaha turkiga, wuxuuna kulan la qaatay abaanduulaha iyo wasiirka gaashaandhigga iyo la kulmay. diyaarad yaray wateen, waxay ka duuleen markay hawshooda dhammaysteen magaalada ankara ayay ka duuleen iyagoo u socda Tripoli caasimadda. diyaaradda marka waa diyaarad yar, dhowr qof saarneen, saraakiil yar iyo shaqaalihii diyaaradda iyo qof lagu tilmaamay inuu yahay sawir qaade. marka diyaaraddii marka hal maray la soo hadashay, waxay tiri waxaan rabaa inaan soo dego, qatar dhinaca electriga ayaa nagu dhacay, macnaha korontadii diyaaradda ayaa ciladi ku timid. kadib dib dambe muu hadlin, waxaa laga wada hadlay diyaaraddii inay dhacday. dowladdii turkiga waxay u dirtay qolihii gurmadka, meydadkii wixii meesha laga soo helay waa la xaqiijiyay inuu abaanduulihii meesha ku dhintay iyo taliyihii ciidanka lugta iyo abaanduulihii iyo wixii dhanaa marka diyaaradda saarnaa. marka hawshaasu marka ninkaasaasu ku dhintay. haddaba marka warbixinadii ugu dambeeyay saakay telefishinka aljazeera ayaa qoraya, wuxuu leeyahay kumuu ahaa abaanduulaha ciidamada liibiya, yaase la socday oo diyaaradda burburtay la saarnaa abaanduulaha. haddaba warbixintu way sii socotay, waxaa leeyahay haddaba marka warbixintu way sii socotay waxaa la leeyahay madaxa dowladda ama ra'iisul wasaaraha dowladda waddanka liibiya cabdulxamiid dubayba ninka la yiraahdo ayaa ku dhawaaqay geerida taliyihii ciidanka liibiya moxamed al hadaad ninka la yiraahdo iyo saaxiibadiisii shil diyaaradeed oo naxdin leh oo uu sheegay in ay la kulmeen oo ka dhacay duleedka magaalada ankara. war-saxaafadeed uu soo saaray ra'iisul wasaaraha liibiya dubayba ninka la yiraahdo oo loogu baroor diiqayay dadkii ku dhintay shilkaasi ayuu ku sheegay in shilka uu sidoo kale uu ku dhintay shilkaas taliyihii ciidamada dhulka General Al-Fituri. haddaba waxaa la sheegay waxaa sidoo kale iyaguna shilkaasi la socday mas-uuliyiin uu ka mid yahay la taliyaha dhinaca abaanduulaha ciidamada Maxamed Al-Awzari ninka la yiraahdo iyo sawir qaade iyo qaar ka mid ah shaqaalihii diyaaradda.
golaha sare ee dowladda Liibiya ayaa sidoo kale soo saaray bayaan ay ugu barordiiqayaan abaanduulaha geeridiisa oo markaa dhimashadiisa. magaalada Ankara wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Ali Yarkiriin ayaa isagana ku dhawaaqay in kooxaha gurmadka degdega ee Turkiga ay gaareen goobtii burburka diyaaradda isla markaana la xaqiijiyay geerida abaanduulaha ay raggii la socday ee baaritaanna dowladdu ay ka furi doonto. haddaba diyaaradda ay la socdeen ee burburtay ayaa waxaa lagu sheegay nooceedu inuu ahaa nooca la yiraahdo Falcon Konton, waxayna ka timid Ankara waxayna ku socotay Tripoli. Falcon Kontonka marka waxa leeyahay waxay ahayd diyaarad yar laakiin diyaarad duqa ahayd alle 70meeyadii bilowgoodii diyaarad la soo saaray ahayd. ciladaha ugu badan marka diyaaradaha duqa ah waxyaabahaas la kulmaana leeyahay. marka ciladu marka maadaama korontaasi naga noqotay kan la leeyahay marka waxay leeyihiin diyaaradda duq ahayd ay saarnaayeen nimankan mas'uuliyiinta ah. haddaba barnaamijkeygii intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa. fakar iyo aragti waxaad hayso noo soo qor, like gareeya oo share gareeya. kulmayno asxaabay, nabadgelyo.